cafiyey. cafiskan sanooyin baan soo waday, waxaan ugu celcelinaya miraheedii macaanaa baan arkay. inay ila aragtaan baan ayaan doonayaa. waxaan arkay hooyo waayeel ah oo ooyeysa, anna waan hadlayaa, iyadiina fiqdii baa ka dhammaatay. hooyadii ooyeysa waan naxay, waxaan isri miyay xanuunsan tahay. waan joojiyey, waxaan idhi hooyo, hooyooyinkeena allah u naxariisto, hooyo maxaad la ooyeysaa? waxay tidhi hooyo, eega hadallada quruxda badan, waxay tidhi hooyo waxaan la ooyayaa, waxaan isqabadsiin la'ahay, isu keeni la'ahay cafiska aad ka hadlaysid adiga iyo xaaladayda aniga. waxay tidhi magaalo ka mida magaalooyinka Soomaaliya ayaa wiil yar inta bam loo soo xiray ayaa liigu soo diray, qolooyin ay wax naga dhexeeyeen ay ugu soo diray. wuu isoo ag fadhiistay wiilkii yaraa, bamkii ayuu isku qarxiyey. wiilkii wuu dhintay, anna waan gubtay bay tiri, dhinac baan eber ka noqday. wiilkii wuu dhintay, anigana ilaahay maadaama aan noolahay waxaan cafiyey wiilkii yaraa. ilaahay baan u baryay dembigiisa inuu dhaafo. ninkii nafsadayda u soo dhigtay ee ilaahay iga badbaadiyey waan cafiyey. laakiin waxaan cafin lahay inkaar qabayaal shayaadiin ah oo qaraabo aan nahay, xigta iyo sokeeye ayanu nahay. yurub baan ka soo shaqaystay, baraf soo xamaalay, kis yaroo aan keenay ayaan u dhiibay 100,000 oo aan iri ilmaha inaan soo celiyaan doonayaa, guryo ii dhisa. guryihii bay ii dhisi waayeen, xoolihii bay iga dhaceen. doolarkii baa kacay, waa la khasaaray, waxbaa si noqday. maalin walbana guryihii way dhisayaan, dad bay siinayaan, anigina xoolahaygii way dhaceen. waan ka soo saari lahay, seen u cafiyaa daalimiintan i dhacay. way ooyeysaa hooyadii, oo intii bay sii kordhisay. seen u cafiyaa mar walba oo aan arka iyagoo gadgadoomaya, gawaari ku socda, raaxaysanaya, guryo iibinaya, 1,000 jeer ayaan dhintaa. seen u cafiyaa hooyo. sidaasoo kale lagu dhacay wiilkaaga, sidaasoo kale idinka laydin dhacay oo laydin dulmay oo xoolihiinni loo leexsaday. sidaasoo kale dhulkiinni laydinkaga fogeeyey, sidiinoo kale uurkiina xumaan loo geliyey. hooyada keligeed ma aha, waynu isdulannay Soomaali. waxaan ku yidhi waad cafinaysaa baan ku yidhi, sababtoo ah waxaadan aqoonin cafiska doorka uu ciyaarayo. cafisku waa awood, cafisku waa quwad. waxaan idhi dadkan aad ka qaadan laadahay xoolahaagii, gacantan daalimada ee aad xoolaha ka qaadan laadahay, cafiska wuxuu awood u leeyahay. idinkuna waa idin leeyahay, dhegaysta. haddii laydin dulmay, xoola laydinka qaatay, dhulal laydinka qaatay, beero laydinka leexsaday, haddii wax walba laydinka qaatay, cafisku wuxuu awood u leeyahay. maadaama awood darri halkan ay ku dhigtay, taagtaadii daraatay, cafiska wuxuu leeyahay awood inuu daalimiintan idinkaga soo qaado xoolihiinni. mamaadi ahaan xaabadanu idin soo qaadaya, maya wuu ka weyn yahay xaabo inuu qaado. xaaba hadduu yahay inuu idin soo wareejiyo, bal xoolihiina intuu gacantan daalimada idinkaga wareejiyo ayuu gacan ilaahay oo nadiif ah oo awood leh ayuu ilaahay idinkugu dhiibayaa. kadibna ilaahay baa kuu korinaya. guriga lagaa dhacay ayuu korinayaa, kuu badinayaa. beerta lagaa dhacay ayuu badinayaa alle subxaanahu wa tacaala. kadibna maalinka qiyaamaha waxaa lagu dhacayaa nicmooyinkan faraha badan abaale oo waa sidee, waa $100 ee aad cafisay, waa wixii yaraa ee xaabadii adduunya. cafiska halkaa eeg, rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin u sheekeynayay saxaabada, markaasuu hal mar cirka fiirinayaa oo uu dhahayaa, kor intuu fiiriyo ayuu qoslayaa. cumar baa dhahaya radiallahu canhu waarda, maxaad la qoslaysaa rasuul allah? wuxuu leeyahay 2 adoon ayaa isdulumtay, hadda miisaankii baa la saarayaa, qiyaamihii ilaahay hortii bay jilbi u fadhiyaan. waa 2 nin oo adduunka isku dulumtay, 2 ayaa isdulumtay. eeg, ilaahay hortii ayay fadhiyaan. mid baa dhahaya, ilaahow walaalkay wuu i dulmay, xooluu iga qaatay, neef buu iga dilay, wuu i dulmay, ilaahow iiga qaad buu leeyahay. iiga qaad markuu ayuu dhahayaa, war ninkan xasanaadkiisii wuu dhammaado, waa la kala qaatay, waxba ma hayo, maxaan kuu sameeyaa? wuxuu leeyahay
dembigayga saar. rasuulka markaasuu ooynaya sala allahu calayhi wasalam. markaasaa ilaahay baa kala dhex galaya, ilaahay baa cafiska bilaabaya. eeg ninkii baa jannada loo furaya, madlamada laga haystay. waxaa la dhahayaa eeg xagga maxaad ku aragtaa? markaasuu leeyahy waxaan ku arkaa jannaad xuuralciin ayaan ku arkaa, waxaan arkaa webiyaalo, waxaan arkaa geeda dahaba, waxaan arkaa wax indhuhuba haynay arag, indhuhu ma arag, qalbigu biniaadan ku soo dhicin, dhaga biniaadan aanay maqal, naciim baan arkaa buu leeyahay. markaasuu dhahayaa waxaa yaa iskale buu leeyahay, ma rasuul baa leh, ma ambiyaa leh, ma saalixiin baa leh, ma shuhadaa leh? maye waxaa leeleeyahay ninkii gataa iskale. oo yaa gadan kara xuuralciin? waxaa la leeyahay adaa gadan kara. maxaan ku gadan karaa? walaalkaa oo aad cafisid. allah, walaalkaa oo aad cafisid waxaad ku helaysaa jannaadkaa 8 aad ku helaysaa. hooyadii markay hadalkaa maqashay waxay tiri sheekhow markhaati noqo hooyo, gabdhayahow markhaati noqda. wallaahi waxay tiri kuwan i dhacay sanooyin aan cafin lahaa, uurkaygii ooyey, murug geliyey, waan cafiyey, ilaahay dartii baan u cafiyey, adduunye maahay aakhiraan cafiyey. allahu akbar, allahu akbar. anna waxaan ugu bishaareeyey gabadhaas eeg $100,000 $200,000 xaabada adduunyo waxay ku bedelatay maxay? jannaad bay ku bedelatay. adiga waa lagu dhacay, waa lagu dulmay, dhul iyo waxaa lagugu dulmay beer oo laga qaatay. xaabadan adduunyo diyaar ma u tihiin inaad ku bedelanaysaan jannaad 8 ah? diyaar ma u tihiin? qof walba oo la dulmay inuu walaalkii cafiyo diyaar ma u yahay? diyaar ma u yahay? inaan duceeyaan doonayaa diyaar ma u tihiin? intiina iminka halka joogta inaad iscafisaan diyaar ma u tihiin? inta diyaarka ah idinkoo raalli iga ah ha istaagaana, gacmahana ha taagaana. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. waa cafis guud. allahu akbar. qalbiga ma iska cafinay? qalbiga ma iska cafinay? walaalaha dhintay ma cafinay? kuwa nool ma cafinay? kuwa dhintay ma cafinay? kuwa fog ma cafinay? adduunye iyo aakhira allah idin cafiyey. fariista allah idin cafiyo. ilaahay adduunyada ha idin cafiyo, aakhira allah idin cafiyo. kuwa jannaad gala allah idinka yeelo. dembigiina allah dhaafo, culayska allah idinka qaado. ilaahay waxaan ka baryay dhallinyaradan maanta garbahayga taagan, dhallinyaradan uurkayga farxadda geliyey, dhallinyaradan ilaahay waxaan ka baryayaa, ilaahay wallaahi keligeena maahin, wallaahi keligeena maahin. halkan malaa'ig baa inala joogto, ilaah malaa'ig baa inala joogto, ina wehelaysa, malaa'ig baa aaminsanaysa. culayska allah inaga qaado, culayska allah inaga qaado, culayska allah inaga qaado. albaabada khayrka allah inoo furo. waynu harnay, ummadihii ka harnay, cizigeena allah soo celiyo, diinteenna allah nagu soo celiyo. dhalinyarada inta xanuunsan ummadeena allah caafiyo, inta xanuunsan allah caafiyo. qaar baa xanuunyo xunxun qabe allah ka caafiyo. qaar baa qoorta iiga soo xiray ducada oo xanuunsana, ilaahay ha caafiyo. intaan xanuunsan bukaan jifi, bukaan socod allah ha caafiyo. ilaahay waxaan ka barya dhallinyaradeena intaana guursanin guur xalaala allah ha siiyo, guur ay ku dhowrsadaan ay ku degaan allah ha siiyo, guur ubad saalix ay ku helaan allah ha siiyo. ilaahay waxaan ka baryay inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran allah ha soo daayo, inta maqan allah ha soo ururiyo. ilaahay inta murugaysan farxad uurkooda ha geliyo. ilaahay waxaan ka baryay culimadeenna kor allah ha yeelo. waxaan maanta ku faanayo oo aan ku socdo oo aan runtii madaxa ii saaro waa culimadeenna, kuwa dalka joogay, kuwa dibadda joogay. ilaahay culimadeenna cimri dheer ha siiyo, cibaado sana allah ha siiyo, culimadeenna ducadooda allah hayna siiyo.
waxaan idinka codsanayaa inta halkan joogta waxaa la ii sheegayaa intoodii bannaanka inay taagan yihiin. waxaan idinka codsanayaa qalbiyadan quruxda badan ee sida quruxda badan u dhegaysanaya maanta marka la baxayo gabdhaha waa in la dhowraa. maxaa yeelay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wixii ugu horreeyey uu istaagay wax xuquuqda gabdhaha ayay ahayd. maalinkuu dhimanayay waad garanaysaan wixii uu ka dardaarmay gabdhaheenna waa sharafkoodii allah soo celiyey. gabdhahan waa walaalihiin, gabdhahan waa xaasaskiin, waa eedooyinkiin, waa habaryarihiin, waa hooyooyinkiin. waa feer laydinka sameeyey, feertiina ayaa laga sameeyey. inaad qawaariirtan inaad ilaalisaan baa lidinkaga baahan yahay. guryahoodii si nabada inay ugu tagaan baa loo baahan yahay. maanta quruxdan aad ku timaadeen, akhlaaqdan aad ku timaadeen waa la duubayaa oo waad arkaysaane ciidankaana lagu qabanayaaye ha idinka muuqato. ilaahay waxaan ka baryey qof walboo walaashii caawiya, si nabada ku caawiya. ilaahay waxaan ka baryo ixtiraamo qadariya maalinka qiyaame macal xabiib allah la soo saaro. diyaar mawtihiin gabdhaha ha hormaraano kadibna idinkaa baxaya. ilaahay waxaan ka baryayaa maanta halkaanaynu ku kulannay meel ka qiimi badan jannaadka jannatulfirdows maca alxabiib allah isugu kaaya geeyo. aad baan idin jeclahay adduun iyo aakhiro jacaylkaas waxaan rabnaa jannaad inaan ku tagno maalinka labada isjecel ilaahay dartii isu jecel halkaa harkaa ay harsanayaan ilaahay hayna wada geeyo. aad baan idin jeclahay. waxaan isku ognahay waa maxay? 5 qodobaan isku ognahay oo ah diinteenna inaan u soo noqonno, qarankeenna inaan ilaalino, waddankan xil baa naga saarana inaynu dhowrno, social mediaha inaynu si fiican u isticmaalno, inaynu iscafinno. astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. waxaan marka hore u mahad celinaynaa sheekh maxamed ajri xasanaad allah kaa siiyo, annagana allah nagu anfaco. dhegaystayaasha ballanta qaaday waxaa laga doonayaa inay oofiyaan, alla dartiisu oofiyaan, ilaahayna dembidhaaf ku weydiistaan. sidoo kale shiikhu markii uu baxo haddii alla yidhaahdo waa bixi doonaa iridda xaggaa xigta raggaa ka bixi doona, gabdhuhuna waxay ka bixi doonaan iridda weyn. fadlan yaan la xiriirin dumarka, ha laga baxo iridda dhinacaas xigta rag waa ka baxo, dhinaca kaletoodna gabdhuhu ha ka baxaano. shiikhaan maxaan salaamaynaynaa, waa maasantaa shiikheennii, ajri xasanaad allah ku siiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.